halkan oo ah magaalo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug ayaa maanta waxa soo gaaray wafdi ballaaran oo ka socday urur siyaasadeedka Tawfiiq wafdigan oo hogaaminayay wakiilka urur siyaasadeedka Tawfiiq ee Galmudug Awil Nuur Gufaaco ayaa soo gaaray maanta halkan oo ah magaalo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug waxaana halkan markuu uu soo gaaray wafdigu ku soo dhaweeyay isla markaana soo dhaweyn ballaaran ugu sameeyay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer Hobyo oo isku jira madax iyo shacab iyagoona xibnahan ka socday urur siyaasadeedka Tawfiiq ay shirar gooni la yeelan doona maalmaha iyo saacadaha soo aadan qaybaha kala duwan ee bulshada reer Hobyo degmada Hobyo ee faca weyn leh ee qadiimiga ah ee maanta ay soo dhaweysay ururka Tawfiiq aniguna ahay xildhibaankii ku matalayay Galmudug ururka Tawfiiq soo dhawaada mudnaantii koobaad ayaad leedihiin soo dhawaada bulshada qaybaha kala duwan oo anigu aan matalayo oo Hobyo ku soo dhaweeyay nugula soo dhaweeyay ururka Tawfiiq boqolkiiba boqol qaybaha kala duwan odayaalka culimaawidiinka hooyooyinka siyaasiyiinta dhalinyarada askarta saraakiisha dhamaantiin sharaf ayaad leedihiin hambalyaan leenahay madaxda insha Allah taala Tawfiiq nooga timid ee garabkayga uu taagan yahay Dr. Awil insha Allah taala iyo inta la socotaba waxaan leenahay soo dhawaada farxamali qorga ka gudubtaan leenahay qorga xaq darrada Soomaaliya ka gudubto dhamaanteed ka gudubto ha u gudubto doorasho qof walba uu nasiibsado rabatinka bulshada uu ka nasiib qaado sidaas ayaan fariintaas Soomaaliya si guud u dirayaa xildhibaan Galmudug anigoo ah kana soo jeeda xeebta Hobyo Haradheere iyo wixii ku gadaaman anigoo ka soo jeedan waxaan leeyahay Soomaaliya oo gudub tartan qof walba ay codka ka hesho maaragtay shacabka ay ka hesho ka gudub Mooryaanayn iyo maaragtay jamaadayn xagga iska dhig Soomaaliya waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa ururka dib u heshiisiinta iyo horumarka Tawfiiq ama xisbi siyaasadeedka Tawfiiq xaqiiqatan waxaan la socotaan waddanku inuu rabo inuu galo doorashooyin haddana ka bilowday gobolka Banaadir ayna ku tartameen 20 xisbi siyaasadeed xisbiga Tawfiiqna uu noqday xisbiga labaad maantana uu ku guuleystay inuu ugu soo hormaro degmo xeebeedka xadaariga ah ee Hobyo marka waxaan leenahay soo dhawow xisbiga Tawfiiq ama ururka Tawfiiq soo dhawow waa ururka ugu horeeyay ee noogu yimaada degmada Hobyo mahad celinayna Tawfiiq oo ah ururkii ugu horeeyay ee Hobyo soo booqda banka dhalinyarada odayaasha madaxda waan salaanta islaamka ku salaamaya waan soo dhaweynaynaa ururka DLida Tawfiiq waan soo dhaweynaynaa waa mahadsan yihiin welcome ma leeyahay urur siyaasadeedka Tawfiiq insha Allah taala waa ururkii aan ku hormari lahaydeen waa laga gudbay dad la soo riixo odayaal keenan insha Allah taala ururada kale ururkii ka soo horeeyay baan nahay taageerada noo muujisana waan kaga mahad celinaynaa waqti dheer baa taagneedeen hadal dheer meeshaan ma qaado dhalinyarada odayaasha culimada haweenka kulli intii aan ka gaarnay si gaar ah wada kulmi doonaa waa is wareysan doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan ku wareejinayaa wakiilka Galmudug ee urur siyaasadeedka Tawfiiq Dr. Awil Nuur waxaan aad ugu faraxsanahay magaalada faca weyn inay maanta soo dhaweyn lagu sameeyo annagoo ka soconno urur siyaasadeedka Tawfiiq ee aad maqlayseen Soomaaliya ururadii tartamay in uu kaalinta labaad ka galo dhammaantiinna waxaan idinku leeyahay soo dhaweyntiinna waad ku mahadsantihiin ururka Tawfiiq wuxuu go'aansaday inuu safarra ku kala bixiyo gobollada iyo degmooyinka Mudug iyo Galgaduud oo anigu aan wakiil ka ahay hor safarra badan baan u soo galnay magaaladan Hobyana xuduntayada ayaa taallay baan u dibdhiganay ma ahane inay ayadu gadaal tahay nagama ahayn dadka reer Hobyo aad iyo aad bay u yihiin dad xadaariya xeeb ku nool ah ganacsato la yaqaan ah annaguna sidaas inay tahay ayaan maantay ugu nimid ay nooguna soo dhaweeyeen
safarka yagu wuxuu xambaarsan yahay inaan marka hore dadka ku wacyi gelino in ay doorashada aadaan isdiiwaan geliyaan magaalada iyo eeriyadeedana ay caddeeyaan populationka ku nool sida magaalooyinka qaarkood ay u caddeeyeen populationka ku nool iyo sida ay diyaar ugu yihiin inay ka qayb galaan doorashada qof iyo codka waxaad ogtihiin ummad badan oo shisheeye iyo Soomaaliba isugu jira waxay aaminsanaayeen inaan Soomaaliya doorasho ka dhacayn laakiin waxay caddaatay markii xamar ilaahay idankii doorasho inta lagu qabtay ayadoo amnigana ay dhammaatay cid waliba waxay xasuusan tahay Soomaaliya inay doorasho ka dhici karto annaguna sidaasaan horna u aaminsanayn bulshadeeduna u aaminsanayn ururka tawfiiq waa urur go'aankiisu yahay inuu shacabka wax weydiisto ka tartamo asagu kama imaan dawlad kamana imaan gacmo shisheeye wuxuu ka yimid bulshada oo is-abaabushay reer Hobyana qayb bay ka yihiin madaxweynaha kursigiisa kuraasta aan doonayno ka mid yahay iyo kuraasta kale ka sokaysaba laakiin annaga hadafkayaga ayaa wuxuu yahay inaan nabad wax ku helno ay aan wax ku raadin aanan dawladda caayin mucaaradka caayin bulshadana aan cod ka weydiisano halkaan aan kala nimaadno taageero reer Hobyo aad baan idinku mahadcelinayaa duhurkii iyo qorraxda isku kaayahaya ma bogan karno waxyaabaha aan rabna inaan Hobyo kala hadalno meel qorraxa insha Allah taala waxaan samayn doonaa kulamo gaargaar ah hadday ragga tahay hadday haweenka tahay hadday culimada tahay iyo hadday ganacsatada tahay aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta nimaadno Hobyo oo muddooyinka sanadaadka soo socda dekad yeelan doonta bulshadeeduna isku tash ay ku dhisanayaan dhammaantiinna waan salaamayaa